anigii daawadayaasha bal maansadii kuugu horeysay sida ay u dhalatay xilliga ay dhalatay iyo bal maansadaasi sida ay u dhacayso bal anigii daawadayaasha xasan neer maqshi كل ما سيدي وريس واحد ما صار يرى نرش يدروفه وكهل يسون واقع لقتري وقت قاسي عم بوحيا به وريي إن وحيا بدن عم بان ما صونكو يقول سببه مركب ما صار وحلا يرى نرش يدروفه حلقة سبعين حلقة عن كل شيء بهذا شنو يتبين كي بيجي 2019 كي بهذا ما صار وحلا يرى نرش يدروفه مركب قريبة بدن وحي كهل ساقف كان نرش يدروفه مركب لتجوه عقبتها هيستاقف كإنه يتحي مرشد مركب كل حنوليه wala qof waxa la cadow aw leeyahay waxa ka kooban marka naftiisa iyo laga taga shaydaanka waxa uu leeyahay bulshada ku dhaxnoolay way bulshada uu ku dhaxnoolay saameyn wax ku yeelata waxyaabo la ilaa disappointed waxa luqada ingiriisiga lagu dhahay niyad jab qofka aan baa lagu haystaan ilaa uu qof gaaro guushu doonayo wax laga yaabay inay lagu haystaan laakiin isla markaa dadkii waxay kuugu saacbinayeen gacmaha markii hore kugu hayeen marka maasadan waxay ka hadlaysaa qofku marka hore inuu kafankaaga tolay inuu marka hore kafankaaga tolayo intaanad guusha aad wadadeeda marka dambe uu kabaaga tolayo amba marka guusha daahida alkeeda qabatana oo qofku marka dambe kugu hareemeeray amba uu doojinaya magacaagi waa taas maansadana kulay maansadan eedeedeedii waxa kamid ah hadii aan xogay inooga taataabto nolosha duruufuhu dacar ma aha joogtaa dabar ma aha kugu xiran ilaa daay abidka waa laga dabaashaa nimca lagu durduurtaa wanaag lagu dakeeyaa aminta dadaasheed غير كان دوركي طالعتا adiguna halku doonayay sare ilaa looma doorine kaligiina dunidani hoo daahir lama oran macnaha kaligiina dunidani hoo daahir lama oran macnaha midna nolosha markii uu dhashay baa la yiraahdaa labada qof midna looma damaanad qaadin kaligii guusha ilaa kuwa loo siman yahay oo dadaal qof waliba hoggiisa ku gaaro ayuu kala kaga horeeya marka inta ay waxaan idhi dadka ruux waxa jira adigoon dareemeyn kafan ku diyaarsho ku doogsada dilkaagu markaad guusha daaheed dacalkeeda qabatana adiga kugu dulmeero magacaaga doojiya macnaha markaad guusha gaadho halkii aad doonaysay magacaagi buu doojinay hebel saaxiib baan ahayn amba hebel isku fasal baan ahayn inuu mansabkaaga ka dhigto wehel hadii uu gaadho darajada gaadhay ayaa qofkii marka dambe saameyn ku yeelanaysa hadaba markii dambe su'aal baan isweydiiyay waxaan idhi waxa iga dahsoon ani ninkan ku dabaal dagi had mudaacad ku yahay ma markuu dantiisiyo daalacashadiisuba dushaadun ka muuqdaan ma markuu ku dabayee duleyntaada oo qura dahab uu ka dhigan jiray had mudaacad ku yahay ragii libinta duuga adduunyadan ku daabacay dhibtu way dul joogtun waqtiga dariiqaas daafurkiisa dooneen waxa iga dardaarana ninka diirada haystee daruuraha dushoodana inuu soo dul joogsado dubaaqiisu tabayo yay ku dagin dugaagaas dadka cunayay jira kulli halka feedback badan baa iga soo noqday waxa la yiri maxay hayday marka lahayd ay ku cunin dugaagaas dadka cunayay jira maxay macnaha dadkani waxay noqdaan waxaan la yiraahdaa tariska amba ugaarsatada luqada ingiriisiga lagu dhahan taris marka dadku ugaarsigooda wuxuu noqdaa inay mar walba wixii inaad leedahay ay ku eegaan il gaara oo qofkii marka dambe ay niyad jab ku dhaco marka waxa la yiraahdaa dadku waa dugaag ilaa inta guusha gaadhiso marka dambe ku noqdaan tariskaaga dadku laakiin inta hore oo dhan waa dugaag dadku marka maasada waxaan ku soo gabagabay markii dambe iyadoo waanayga ahayd dadkani waxyaabaha doonayaan maxay markay lugaha ku haystaan marka dambe ay saacad ku tumayaan waxaan idhi waxay diidayaan in darajo gaadho kulli dib u dhacaagana way ku diirsanayaan balse doqonku waa kii ka dayriyahankiisu markay faaqidaan duul halku doonayay sare ilaa looma doorina kaligiina halku doonayay sare inay tahay dumaan cus macnaha qofka waxay uga dayrinayaan waxana uu ku socdo doonayaaba inay wax adag tahay mansadaasina kulli aad biska gaabnayd oo ay ugu baan ku ah xilligaas sugaanta marka mansadaasina intaas ay ku eegtay